markaan bilaabayn ii sheeg. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ولا ليال waxaa runtii wax lagu farxo ah in jaaliyadda Soomaaliyeed ee Alberta ay fursad u heleen TV asbuuciiba mar ay ka daawan karnaan barnaamijyo kala duwan oo barnaamijyadaasna uu ka mid noqon karo oo ka mid yahay sida walaalkeen maamula jaamac uu noo sheegay barnaamij ugu talagaleen inay jaaliyaddu ay kaga faa'iideysto diinteeda. warbaahintuna xaqiiqatan noocay doontaba ha noqotee waa qalab dadku qoloba si ay u isticmaasho. dadka qaar waxay u adeegsan karaan warbaahintu in dadka lagu dhibaateeyo diintooda, caqiidadooda, akhlaaqdooda. dadna waxay u adeegsan karaan in ummadda wax loogu taro oo caqiidadooda loogu saxo oo diintooda lagu booriyo oo dantooda adduunya siday wax u qabsan lahaayeen loogu sheego. marka hadba qof walbaba niyadda uu ka duulayo ayay ku xiran tahay. marka waxaan u dardaarmayaa dadka ku howlan warbaahinta, ama TV ha noqdo, ama internet ha noqdo, ama saxaafad la qoro ha noqoto, jaraa'id, wax walbaba ha noqotee inay niyadoodii hagaajiyaan oo wax ay howshaasi ay hayaan ay ku raadsadaan ajar iyo ilaahay inay ugu dhowaadaan. acmaasha ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaado way fara badan tahay. nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi inama alacmaalu binniyaat. acmaasha waxaa sal u ah oo yacni lagu aqbalaa oo lagu yacni dhammaystiraa niyada hadba loola yimaado. marka dadka warbaahinta ka shaqeeya haddii ay niyadoodu ay noqoto mujtamaciina wax ku tara, diintooda ugu sheega, waxa dantooda adduunyada ah yacni yacni u wanaagsan ayaga mustaqbalkooda ugu sheega, waa niyo wanaagsan oo ay ma aragtay yacni ilaahayna uu ka thawaabinayo. haddiise warbaahintu yay noqoto mid ummaddii lagu dhibaataynayo caqiidadeeda iyo dhaqankeeda iyo muxuu aha midnimadeeda, dee waxay noqonaysaa dhibaato ummaddii oo dhibaataysneed lagu sii kordhinayo. marka waxaan rajaynayaa dadka warbaahinta ka shaqeeya gaar ahaan dhulalka qurbaha ee ummaddu ay u soo qaxeen, isla markaasina challenge badan ama taxadiyaad culculus ay haystaan xagga diintooda, siday diinta u haysan lahaayeen, yacni muxuu ahaa islaamnimadoodii ugu sugnaan lahaayeen, dhibaato weyn ay ka haysato, in ay warbaahintaasu noqoto fursad ummadda lagu baraarujiyo inay diintoodii haystaan, inay ma aragtay midnimadoodii ilaaliyaan, inay ilaahay subxaana wa tacaala ka baqaan meel walba ay joogaan. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi abudar ittaqi illaaha xayumaa kunt, meel alla meeshaad joogto ilaahay ka baq. alla ka baqiddu ma aha marka masaajidka la joogo oo keliya, marka dhulalka muslimiinta la joogo oo keliya, meel walba aad joogto, jaamacadda haddaad joogto, suuqa haddaad joogto, shaqada haddaad joogto, dariiqa haddaad marayso, ilaahay in laga baqo. yacni sidaasaa qofka muslimka laga rabaa inuu ma aragtay diintiisa yacni noqoto fahamkeeda faham dhammaystiran oo tallaabaduu qaadaba uu ka fekerayo inuu ilaahay raalli ka yahay iyo inuu alle subxaanahu wa tacaala uusan raalli ka hayn. marka warbaahintu marka qeyb weyn bay ka qaadan kartaa waxtarka bulshada iyo toosinteeda, iyadoo marba yacni marti gelinaysa aqoon-yahanada yacni jaaliyaddu, culimmadooda, yacni dadkoodii waxbartay takhasusaadka kala duwan ee culumta, oo marba qolo walbaba ay usoo gudbinayso
talooyin iyo khibradooda dhallinyaradiina ku waaninaysa yani wixii dantooda ah iyo mustaqbalkooda meeshay u jihayn lahaayeen. aad iyo aad baan u rajaynayaa, aan u filayaa in yani muxuu aha mashruucan oo kale ee warbaahintu waxtar weyn uu yani ka geli karo yani mujtamaca waxqabadkiisa. marka waa ku mahadsan yihiin walaalaha runtii ka shaqeeya ee ma aragtay fursadan suuro geliyey ama u dadaalay. waxaana rajaynayaa inay helaan fursado kale iyo waqti dheer oo ka badan waqtiga hadda ay heleen, si markaas khayrka yani ummadda loo sheegayo ama diinta yani loo gudbinayo yani waqti intan ka badan loogu helo, oo dadku guryahooda ay maaragtay ay ka dhegaystaan khayraad fara badan iyo duruus. taasuna haddee ajrigeeda qof alla qofkii soo qabanqaabiyey iyo kii soo jeediyey intuba way wada helayaan. dadkuna waxay ka faa'iidaysan doonaan barnaamijyadaas yani bixi doona hadduu alla yiraahdo. marka yani waxaan leeyahay waa bogaadin bay leeyihiin runtii mujtamaca. yani waan ugu tahniideynayaa fursadan. waxaan kaloo u mahad celinaynaa walaalihii soo qabanqaabiyey dadaalkaasina u muujiyey. waxaan rajaynaynaa in goor dhow yani muxuu barnaamijyo noocan oo kale ah oo waqtigaa gaaban loogu soo gudbinayo arrimo wanaagsan oo dhaxalgala oo ummadda taabanayo danteedii yani adduunye iyo aakhiraba lagala hadli doono. intaas ayaan jeclaystay inaan maaragtay halkan aan ka soo jeediyo. wabaaraka allahu fiikum. waadna ku mahadsantihiin daawashadiina iyo dhegeysigiina. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.